waa maxay farqiga u dhexeeya computer science iyo information technology ama CS iyo IT? dad badan markay ay maqlaan computer science iyo IT waxa ay uga dhigan tahay wax isku mid ah. dad badanna ayaga oo aqoon u leh inay kala duwan yihiin ayay u isticmaalaan si erayo isku mid ah si ay hawsha u fududeeyaan oo aysan u adkayn. Hadda waxaan doonayaa inaan kuu sharaxo maanta farqiga u dhexeeya computer science iyo information technology. waa maxay sababta markii la baranayo ardada qaarna ay u aadaan wadada computer science qaarna ay u aadaan IT? macno ayaa ku jira meeshaas. inkasta oo ay yihiin laba maado oo marar badanna kala leexanaya, marar badanna isku soo darsamaya, waxaan ka soo qaadi karnaa laba wado oo laga yaabo markii hore inay hal irid ka soo wada baxeen, kala tegey, marar badanna isku soo dhacaya, marar badanna isdhaafaya, isgoynaya, isku soo laabanaya, mid kastana ay wadooyin yaryar ka sii baxaan, aanna kala maarmin, aanna isku meel u socon. laga yaabee laba wado oo hal irid ka soo wada baxay, qasab ah inay hal qol ka soo wada baxeen ama hal guri ka soo wada baxeen, laakiin hal irid ayay ka soo wada baxeen. way kala tageen, way isku soo laabteen, way kala tageen, marar badanna way isgooyeen waana isdhaafeen, mana kala maarmaan. tusaale fudud haddii aan kuu soo qaado, computer science waxa uu qaabilsan yahay fahanka qaabka kombiyuutaradu u shaqeeyaan, qaabka ayaga naftirkoodu u fikiraan, sida qaabka kombiyuutarku u fikiro, qaabka kombiyuutarada loo sameeyo, xisaabaadka ka dambeeya, qaab fikirka ka dambeeya, sida kombiyuutaradu u fikiraan, samaynta kombiyuutaro cusub, samaynta luuqado cusub oo kombiyuutaradaas lagula hadlo, horumarinta kombiyuutarada, cilmi baarisyada ku saabsan kombiyuutarada, ka fakiridda iyo qaabaynta iyo naqshadaynta kombiyuutarada, sidii loo sii horumari lahay, sidii kombiyuutarada mustaqbalka in la sameeyo, kuwaan inta laga gudbo in kuwa kale cusub la sameeyo. waxyaabahaas waxaa qaabilsan computer science. IT maxay qaabilsan tahay? IT waxay qaabilsan tahay in teknolojiyada oo ugu badan kombiyuutarada, laakiin waxyaabo kalena ay ku jiraan, loo adeegsado sidii xogta loogu kaydi lahay, sidii xogtaas waxyaabo kale loogu bedeli lahay, sida go'aan loogu qaada lahay, sida xogtaas lacag looga samayn lahay, xogtaas iyo kombiyuutarada iyadoo la isticmaalayo lagu sii horumari lahay ganacsiga, sida go'aamo loogu qaada lahay, sida howlaha loogu fududeyn lahaa iyadoo la isticmaalayo kombiyuutar iyo teknolojiya kale. marka waxaan dhihi karnaa computer science waxay qaabilsan tahay kombiyuutarada qaabkay u fikiraan in la fahmo iyo in ayagii lasii habeeyo, lasii farsameeyo. IT waxay qaabilsan tahay kombiyuutaradaas oo keliya ma aha, teknolojiya badan oo kombiyuutarada ku jiraan in lagu shaqaysto, howlaha lagu sii fududeeyo, qaabab cusub oo loo isticmaalo, laga fakero iyo wixii la midka ah. maanta haddii aad barato computer science, shaqada aad helayso maxay noqon kartaa? waxay noqon kartaa inaad kombiyuutaro samayso, kombiyuutaro alifto, naqshadayso, falsafada ka dambaysa kombiyuutarada sii horumariso, xisaabaadka oo kombiyuutarada ku shaqeeyaan aad sii barato, kombiyuutarkaas sida loo horumari lahaa aad ka shaqayso. laakiin haddii aad maanta IT barato, wadooyin kale ayaad raacaysaa. waxaa laga yaabaa inaad raacdo wadooyin networking quseeya, amaba ma ahee waxaa laga yaabaa inaad samayso brogramyo loo isticmaalo ganacsiga, applicationo iyo waxyaabo la midkaa oo howlo fududeeya. aan dhahno waxyaabo howlo fududeeya, adigoo kombiyuutarka isticmaalaya ayaa waxaad soo saaraysaa waxyaabo howlaha fududeeya. waxyaabahaasna waxa ay ka shaqeeyaan meel walba, isbitaalada, isgaarsiinta, baabuurta, internetka gudihiisa, waxbarashada. IT waxaad u isticmaalaysaa in waxyaabahaas lagu sii horumariyo. dhowr tusaale ayaan ku siinayaa si aan kugu fududeeyo qaabka ay u shaqeeyaan. tusaale ahaan, kombiyuutar in la sameeyo waa shaqada computer science, laakiin kombiyuutarkaas in la isticmaalo oo qaabo badan howlo lagu fududaysto waa shaqada IT-ga. markii kombiyuutarka la soo sameeyey haddii uu maanta halaabo, halaawgaasi haddii uusa ahayn wax quseeya qaabka kaxdiisa iyo qaab fakarkiisa, haddii aysa ahayn, waxaa shaqo kule IT inay farsamayso oo ka bedesho waxay gubtay ee wax kale ay geliso. kombiyuutarka hadduu halaabo, ma aha dad computer science ka bartay ma aha shaqadooda, ee waa dadka IT-ga bartay inay sameeyaan. kombiyuutar cusub in la alifo oo la naqshadeeyo ma aha shaqada IT-ga, waa shaqada computer science. laakiin markii kombiyuutarkaas la sameeyo, in waxyaabo kale inta lagu sii daro, waxyaabo kale loo sii isticmaalo, oo tusaalahan loo isticmaalo in dad lagu basaaso aanahno, ama in waxbarashada lagu fududeeyo, ama shaqada lagu fududeeyo, ama ganacsiga lagu fududeeyo, waa shaqada IT-ga. in database la alifo oo la sameeyo waa shaqada computer science-ka, laakiin databasekaas in la maamulo oo la ilaaliyo oo la isticmaalo waa shaqada IT-ga. algorithmka oo kale in la alifo waa shaqada computer science, laakiin in la isticmaalo qaab business loo isticmaalo, qaab ganacsi loo isticmaalo waa shaqada information technology. xisaabaadka iyo qaab fakarka kombiyuutarka, hardware cusub in la soo saaro, qalab cusub oo kombiyuutar in la sameeyo waa shaqada computer science. qalabkaas in laga shaqaysiiyo, wax kale loo isticmaalo, wax kale lagu sii daro, qalab kale lagu rakibo, qalabka inta lagu rakibo ee wax cusub soo saaraan waa shaqada IT-ga. tusaale ahaan, computer science isagu marka uu soo saaro kombiyuutar cusub, in loo isticmaalo kombiyuutarkaas qaab waafaqsan sharciyada u yaallo iyo xeerarka iyo sharciyada u yaallo waddankaas, qaab waafaqsan in loo isticmaalo waxaa iska leh IT-ga. computer science-ku hoos ayuu ka ballaaran yahay, laakiin faracyada ka sii baxa aad uma badno. hoos ayuu ka ballaaran yahay. aan dhahno computer science waa geed weyn oo salka u weyn
oo uu sii dheeraadaba sii yaraanaya aan barajayaal badan ka sii bixin. Computer science-ku waa waddo gadaal weyn, waa waddo weyn, laakiin aad u moodo inay sii yaraanayso waddooyinka ka leexanayana ay yaryar yihiin. IT-gu waa waddo marka hore yar, laakiin faracyada ka baxa iyo laabaha ka baxa ay aad u sii ballaaranayaan. Haddaba haddii aad weydiiso keen bartaa maanta computer science iyo IT, waxaan ku dhihi lahay ogow kombiyuutarka maalin waxaa jirtay uu ka weynaay guri dhan. Kombiyuutarka waxaa jirtay maalin uu ka weynaay guri filla ah, uu ka cuslaay gaari dhamo loori ah ama taraag ah, uu ka qaylo badnaay matoor, uu ka dabcun badnaay xaafado dhan ama tuulo. Laakiin maalin kasta soo u sii yaraanayay, maanta waa kan maraya gacantaada inaad ku wadato kombiyuutarkii. Maxaa yeelay taleefka aad gacantaada ku wadato waa kombiyuutar yar. Waxaa cajiiba marka kombiyuutarka halkaas ka yimid maantana halkaas maraya, annagu in aanan ku lahayn in aanan waxba ku darsan haba yaraatee, ama ay aad u yar yihiin waxa aan ku darsan guud ahaanba. Laakiin IT-ga maanta qayb ayaan ka noqon karnaa. Qof kasta ayaa qayb ka noqon kara, qof kasta ayaa baran kara, qof kasta ayaa horumari kara. oo ficlan waana ogahay dad badan oo Soomaali ah oo IT-ga horumariyey ama waxyaabo cusub alifay ama qaabo cusub u isticmaalay ayaa jira. Marka anigu waxaan ku dhihi lahaa haddii aad labadooda midood baranayso, baro IT-ga. Asaga ayaa ka fursado badan, ka baranjiyaal badan, asaga ayaa kuu suurtagelinaya in aad xataa marar badan aadan qof u shaqayn ee adigu wax aad leedahay inta soo saarato aad ka shaqaysato, ama wax aad leedahay ganacsiyo aad leedahay aad u isticmaasho IT-gaas in aad wax ku fududayso, ku hormariso, shaqada ay kuu fududaato. Marka waxaan ku dhihi lahay ku talin lahay inaad barato IT-ga. Wassalaamu calaykum.